الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. حسبك وهو الرئيس قدوميها إرجوين وعنكو سلام يا سلامة إسلامك كل وقت أشكر يا وعن شعله هالكن إن كلمة كوبان أو معنا قوم قصو تشيديو مرتشرف طيب إرجوين كخدمتي تلك القديسية دافع عالمك runtii waxaan ku faraxsanahay maanta inaan halkan hortiina taagnaado oo maalin weyn oo taariikh cusub qormi doonto baal dahabana ay ka gali doonto siyaasadda Soomaaliland anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada xisbiga wadani oo ah xisbiga dhalinyarada iyo waliba isku haynta dalka iyo dadka waxaan jecelahay inaan uga mahadcelino ergooyinka qiimaha badan leh ee quruxda shirka u yeeray ee ka kala yimid daafaha caalamka iyo dalka gudihiisa mudanayaal iyo marweyn waxaa tii dadka maanta laga rabo inay dalkan isbedel muuqda ku sameeyaan waxaa tii ergooyinka looga fadhiyo inay dibadda u taagaan oo ay rumeeyaan waxa shacabka Soomaaliland ka dhex buuxaya oo ah in aan dalkan u qalmin halka uu maanta taagan yahay waxaan maanta gacantiina ku jira inaad jawaab cusub u jeedisaan siyaasadda dalka oo abuurtaan wadaniyad iyo la xijeclo ku saabsan hoggaanka dalka maanta waxaan la soconaa dhamaanteedba in xaaladda dalka ku sugan yahay ay tahay halkii ugu hooseysay intii ay Soomaaliland jirtay waxaynu kala ognahay xaaladda dhalinyarada Soomaaliland ku jirta halka ay tahay kuwaas oo u baahan mustaqbal in loo abuuro oo laga saaro rajo xumada ka haysata dalkooda ay wax u soo barteen maanta 4 sano kadib waxaynu ka baran karnaa xukuumadda hadda joogta iyo xisbigeedaba in mustaqbalkii dhalinyarada ay godbad u gudbeen oo magacoodii magaca dhalinyarada ay ku sameysteen sanaaduuq ay hay'adaha caalamka wax kaga qaataan iyagoo jeeb cid gaar ah ku dhacaysa waxaynu ognahay inuu sanadkii saddexaad uu jirsaday sanduuqa dhalinyarada horumarinta dhalinyarada oo madaxweynuhu uu digreeto ku soo saaray isagoo ku aasaasay xeer madaxweyne waxaan la garanayn miisaaniyadda sanad walba dhalinyarada loogu daro oo $200,000 cid ay ku dhacdo 3 sano jirsatay sanduuqaasi wuxuu u baahan yahay inaynu dhalinyartu xisaabtanto inay daba gasho xukuumaddan iyo magaca lagu qaadanayo iyo magacooda oo lagu qaadanayo lacag gaar ah dhalinyaradu waa rajada kaliya ee dalkan leeyahay xisbi ahaan waxaan aaminsanahay inay door weyn ka qaataan hogaaminta xisbiga oo waxa kugu tusaale in xisbiga wadani 70% xogayaasha iyo madaxda sare ay dhalinyar yihiin waxaynu isla qirsannahay in dhalinyaradu gacmaha isqabsadaan si ay wax bedel ugu sameeyaan dalkan xisbiga wadani waxa ka go'an inuu dalkan helo aqoonsi buuxa iyadoo loo marayo dhalinyarada wax baratay ee ku kala sugan caalamka ee ay xukuumadda iyo xisbiga talada haysa ay ka faa'iideysan waayeen xisbigu waxa uu ku tartamayaa in laga faa'iideysto cilmiga iyo aqoonta dhalinyarada caalamka inoo joogta insha Allah ta'ala marka uu xisbigu guuleystana waxaynu ka saari doonaa qalbi jabka iyo niyad xumida ay ka qaadeen xukuumadda talada haysa ee dalkaba haddii aanu ku noqono taariikhaha dhalinyarada caalamka 1.8 bilyan baa lagu qiyaasaa dhalinyarada caalamka inay yihiin waddanka ugu horumarsan xagga dhalinyaradana waxaa lagu qiyaasaa inuu waddanka Singapore yahay sababaha ugu muhiimsan ee uu ku gaarayna waxa weeye inuu ka faa'iideysay dhalinyarada caqligoodii iyo cilmigoodii inuu ka faa'iideysay waxaan rajaynayaa xisbiga wadani marka uu talada dalka yimaadana inuu sidaa iyo sidii uu Shaamax Shabeer sheegay inuu Singapore Africa aynu noqon doono insha Allah ta'ala oo Singapore weyn oo Soomaaliland baa ka weyn oo ka aqoonsiga qaadatay markii 60kii waxaan u baahanahay in Singapore iyo dalka caalamka wada tartamo haddaba xisbi ahaan waxaan aaminsanahay marka laga yimaado qorshayaasha mustaqbaleed ee xisbigu u diyaariyo dhalinyarada oo xisbigu u dhisan yahay inay tusaale cad kugu tahay marka laga yimaado qorshaha inay tusaale cad kugu tahay dhalinyarada xisbiga ka muuqata xisbiga wadani dhalinyaradu waxay ka hayaan xilalka ugu muhiimsan marka loo eego xisbiyada dalka waa xisbiga qura ee hanaankiisa laga dheehan karo dhalinyaro sidoo kale xisbiga wadani waa xisbiga isku haya dhalinyarada reer Soomaaliland waxa uu xisbiga wadani ku tartamayaa inuu haqabtiro hiilka iyo hayaanka dalkan loogu jiro xisbigu waxa uu ka dharagsan yahay xaaladda dhabta ah ee ay imika ku sugan yihiin dhalinyarada reer Soomaaliland oo ah waxbarashadii oo liidata caafimaadkii oo liita
in maanta 4 sano kadib sidaa xildhibaanku sheegay maanta magaalada Hargeysa ay dameero u dhaamiyaan waxay ku tusaysaa rajo xumada xisbiga laga qabo xisbiga wadani waxa uu qorshe cad ka leeyahay xakamaynta dhalinyarada tahriibaysa waxa uu insha Allah tacaala markuu talada qabto yareyn doonaa dhalinyarada sanad walba inaga taariibto gunti iyo gabagabadii waxaan halkan mar labaad ugu hambalyeeynaya shirweynaha labaad ee xisbiga oo si qurux badan maanta inoogu bilaabmay waxaana waliba si gaar ah ugu hambalyeeynaya gudoomiyaha xisbiga ahna musharaxa madaxweyne mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo ku suntan inuu taariikh cusub ku keeno ama ka dhaliyo Soomaaliland kana dhigi doono insha Allah tacaala maalmaha soo socda mudane gudoomiye ahna musharax madaxweyne waxaad ku niyadsamaataa in dhalinyaradu hareertaada joogtay in dhalinyaradii hareertaada joogtay ay joogi doonto weliga ilaa ay dalkan ku gaarsiiyaan oo ay talada qaranka ku dhiibaan waxaanad ogaataa in dhalinyaradu ay ka xamaasad iyo xiiq badan yihiin sidii ay hore ahaan jireen waxa kaliya ay ku tagayaan waxa weeye inay kursiga talada dalka isbedel laga dhaliyo aad iyo aad baa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh